Mareykanka iyo dalal badan oo xulafo ah ayaa ugu baaqay Taliban inay joojiyaan dilalka qorsheysan ee loo geysanayo xubno hore uga tirsanaan jiray ciidamada booliska iyo kuwa ammaanka ee dalka Afghanistan. Warar qoraal ah oo ay si wada jir ah u soo saareen madaxda Mareykanka, kuwa Yurub iyo 20 dowladood ayaa kaga dalbadeen maamulka Islaamiga ah ee Taliban in ay ixtiraamaan ballantii ahayd in aan dadkii la soo shaqeeyay dowladii hore, gaar ahaan madaxda ciidamada. Waxaan aad uga walaacsanahay wararka sheegaya in la geystay dilal badan isla markaana ay maqan yihiin xubno ka mid ah ciidamada booliska iyo kuwa amniga ee dowladii hore, ayaa lagu yiri bayaankaasi. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in la diiwaangeliyay in ka badan 100 dil iyo afduub oo loo geystay saraakiil hore uga tirsanaa dowladda Afghanistan tan iyo markii Taliban ay la wareegeen talada dalkaasi ku dhawaad 4 bilood ka hor. Ifraax Maxamed Mataan, Ariel TV.